Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan asxaabteena nagu xiran naga daawanaysa kanaalkeena TasteTube iyo sidoo kale Facebook page-keena Cabdirasaaq Tayse. Waxaa hadda la isku aadiyay group stage-ka ama qaabka gruubyada ee Champions League. Waxaana soo baxday dhammaan isku aadka UEFA Champions League. Insha Allah waan dulmari doonaa iyo aan ku bilaabay group A. Waxaa isku aaday Bayern Munich, Manchester United, Copenhagen iyo Galatasaray. Group B: Sevilla, Arsenal, PSV, FC Lens. Group C: Napoli, Real Madrid, Braga iyo Union Berlin. Group D: Benfica, Inter Milan, Salzburg iyo Real Sociedad. Group E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio iyo Celtic. Group F: Paris, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle. Group G: Manchester City, RB Leipzig, Red Star iyo Young Boys. Group H: Barcelona, Porto, Shakhtar iyo Antwerp. Sababta ugu xiran midkeedii group A ayaa isdheelayd waa groupka geerida. Group K ayaa ugu adag. Waa sanadkan iyo sanad xiiso leh UEFA Champions League. Groupka geerida waxaan u soo qaatay Group F oo ay ku wada jiraan Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan iyo Newcastle United. Adigu saaxiib, Group K ayaa isleedahay waa groupka dhimashada ama waa groupka geerida. Sidoo kale sanadkan kooxdee ayaad u saadaalinaysaa inay hanato koobka dhagaha weyn ee UEFA Champions League. Waad mahadsantahay haddii aad nagu cusubtahay subscribe sar. Assalaamu calaykum.